Xayawaan ka mid ah xayawaanada ugu awoodda badan waa dubka, kaasoo culeyskiisu uu gaaro 1 kiiloogaram. Xayawaanka dubka waa koox yar oo ka mid ah naasleyda waaweyn, waxaana laga helaa meelo badan oo caalamka ah. Waxaana uu ku nool yahay kaymaha, buuraha, iyo meelaha saxaraha ah iyo dhulalka coosleyda ah. Xayawaankan waa mid aad u awood badan, asigoona ah mid aad u geesi ah, kumana dhacan xayawaanadu inay wajahaan wax yar maahee, sida shabeelka, kaasoo asigana ah mid aad u awood badan. Markii labadan xayawaan kulmaan, waxaa halka ahaan doono dagaal aad u culus, waana waxyaabaha barnaamijkan idinkula wadaagi doono. Balse intaana muuqaalka bilaabin, like saar oo subscribe garee kanaalka Xiskaal si ay kuu soo gaaraan muuqaalada aanu soo gudbino. Muuqaalkan, shabeelka ayaa la kulmay dubka, waxaana dhex maray dagaal aad u culus, asigoona mid waliba uu adeegsanayo awoodihiisa gaarka ah. Markuu dagaalku socday daqiiqado yar, waxaa muuqatay in shabeelka uu ka awood badin karo dubka, balse taas waqti dheer siima jirin. Dubka waxa uu kaashaday awooddiisa oo dhammaystiran, waxaana uu awooday inuu ka adkaado shabeelka ilaa uu ka cararay. Waxaana u caddaatay shabeelka in dubku uu carooday, suurtagalna ay tahay inuu dilo. Dubka oo jooga webiga dhinaciisa waxaa soo weeraray 2 shabeel, iyadoona uu caddahay dubka inay 2 shabeel yihiin, haddana isma dhiibin dubku. Laakiin waa wajahay, waxaana uu awooday inuu waqti dheer iska celiyo. Ugu dambeyntiina wuxuu xaqiiqsaday inay ka adkaan karaan, asigoona halkaa ka cararay. Muuqaalkan, dubka ayaa wuxuu ku soo dhacay koox yey ah, laakiin dubku way u fududahay inuu ka adkaado hal yey, balse arrintu hal way ka badan tahay. Sidaa darteed, yeydu waxay adeegsadeen inay 4 dhinac ka soo weeraraan. Ugu horreynba ma uusan cararin dubku, laakiin awooddiisa ayuu u babac dhigay yeyada, ilaa ugu dambeyntii uu halkaa ka cararay dubku. Maxaa dhacayo hadday kulmaan ama isdagaalaan dubka iyo libaaxa oo ah boqorka kaynta? Taasi waa mid dhacaysa haatan. Libaaxa ayaa daandaansi ama foodo dagaaleed ku qaaday dubka, asigoona dubku gudagalay inuu isdifaaco. Balse libaaxu siduu u maleynayay horraanba may noqon. Wuxuuna la kulmay awood aan la loodi karin. Marar badan ayuu isku dayay libaaxu qabashada dubka, balse wuu ku fashilmay. Dhowr daqiiqadood kadib, dubka waxaa ka soo muuqatay daciifnimo, asigoona u adkeysan waayay darbooyinka ka soo baxayo libaaxa. Ugu dambeyntiina halkaa wuu ka cararay, iyadoona ay noo muuqato in libaaxu yahay boqorka kaynta.